shaqaalaha ka howlgala dekada magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ee dhawaan xukuumadda Soomaaliland ay ku wareejisay shirkadda DP World ayaa maanta mudaharaadyo banaanbaxyo ka dhigay magaalada Berbera iyagoo shaqaalahan ku mudaharaaday shirkadda DP World ee la wareegtay dekada magaalada Berbera sidoo kalena shaqaalahan mudaharaaday warbaahintu wax ka weydiisay asbaabaha u mudaharaadeen ayaa sheegay in maamulka cusub ee dekada magaalada Berbera la wareegay ay ka jireen gunooyinka iyo waxaabihii ay ku shaqan jireen iyagoo sheegay in maamulkaasi ay ugu caago joogleeyeen shaqaalaha uga yeeran doonaan dekada Jamaal Cali ee magaalada Dubai hukuumadda Soomaaliland ay warqad ka haystaan waa sida hadalka u dhigeen shaqaaluhu waxaana hadaladoodii kamid ah farsamada saaka markaan u tagnay shaqadii waxaan u kulli maxay tolay maareeyay dekada Carabka ahaa waxaan doonaa lacagtii container-ka iyo tii percentage-ka xaq u lahayd wixii lagu yiri shaqadii ma hayna buuli iskala dareera waxaan ka haysanaa shaqaalaha ka sanaba ajnabiya ay ka sanaba marka dawladda waxa leena 4 saacadood gudaha hadii ka soo jawaabeydo waxaan sameey doonaa waxaan dadka arkaysaa waa dhalinyaradii ka shaqayn jirtay dekada weyn ee Berbera siiba waaxda farsamada loo yaqaan qaar ka mid waa santareeladii kuwani waa kaalbaradii waa wiishashkii cagafyadii heavy duty iyo dhan lifteriskii waxaan naqabsadayna waa carab iyo daabshil 24 saacadood haddii ay dawladii aanu Soomaaliland 1992 dekada Berbera ku wareejinay haddii 24 saacadood wax ka qaban weydo dubbaanu carabta u qabsan doonaa Berbera anaga yeelan doono ashaad soo galmay haddaanu nahay darwalinta dekada Berbera in badan ee waaxda farsamada in badan baanu la soo jiifnay tabiyeedaad walba maantana carab baa la keenaya waxaan aqbalayna maaha haddaanu nahay laanta mayno ilaahay waxaan ka barayna halkii ay naga timin lahayn jeceliyo ayaan ilaahay ka barayna ku sheegay waxaan ku sheegay dadkii ilaahay xaq aan u siiban maanta lama qabato ilaa Jamaal Cali baa laga keenaya ciidan halago ku shaqeynaya halago maanta lama waadinaan ahayn inta bartaan lagu yimaado lagu aanjo xaqna looguma lahaada waxaan ku sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa arrinkaad hadduu ka qaban waayo waxba waa bareynaa dawladda ka kireysay meesha annaga nooma imanin qalabay hadlin maareeyo ayagii weli xasku ku jira waxa weeye dagaal baanu ka taaganay dagaal imika inaanu guryahooda ugu noqonaanu halkaa ku wada laynama xaqna ku ay dib loo dhexmarmareeyay la wareegay barigana la wareegay waxaanu yeelayna maaha waanaanu ka dagaalamayna waanaanu ka xaajo qaadnaa ninna isu daba taagmayna Berbera saaka shir baan ku lahayn waaxda oreeshka xagga dambe ninka leeyahay Ibrahim Xamaadi ee haysta DP World maareeyaha DP World wuxuu nagu yiri shaqaalaha maliyada 500 hadii aan ugu shaqaynaynin adeer kuma dib ay joogaan u yeeranaya Jamaal Cali aan ugu yeeranaya maanta halkan igu imanaya hadii aan maliya dawladda waxaan ku leeshiyay ajaanibina ugu shaqeeyaan tabta ayaan ku leeshiyay hadii ay saa ugu shaqeey waayaan waa iska dararaysan dhibaatada naystay waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa hadaan talaabada waxba ka qaban waayo waxaan u sheegaynaa inaan DP World ka joogaynin barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed oo warbaahintu wax ka weydiisay mudaharaadka shaqaaluhu sameeyeen ee waxa hadaladiisii kamid ahaa saaka qayb kamid ah dekada shaqaalaha dekada iyo qoladii DP World ayaa luqad ahaan isku fahmi weeyday laakiin sayidku insha Allah oo soo gabagabeeyay guddiga soo saareen arrintii aan ka wada hadalnay arrintaasna waa dhamaatay ilaahay ma jiro wax shaqaaluhu la xiriiraan ka loo anagu ma aqoonsan wax shaqaalo oo xiro meesha laga soo baxay ma jirto laakiin sayna yaro dibadda xubsho ka sameeyay waanu xirxay waa shaqaalaha dekada wali si official ah looma wareejiyo markuu madaxweynuhu yimaado si official loogu wareejiyo imikana tanbi waxa u socda sidii loo training garin lahaa shaqaalaha wali u socota Istiqaarab Saleeban telefishinka caalamiga ee Kalsan TV magaalada Berbera.